قاتل عكت دارتان لكن ضفيرات على جوج ضفيرات ورهوي وحبا يدين دبسا والله وحوين بيدين دبسا بالله يتالله جوجية ضفيرات ودان ما أنتنا لما إنكر كرو دورك ويلشا مع وسليدة حوالي wax la inkir kara ma aha wax qarsooni karna ma aha wax yaani mar hoos la gelin karna wallahi nasaani billahi tallahi adinka waa ogtii wayahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh qayrtood salaam ee ilaantii meel kasta joogtaan soo dhawaada asxaabay waqtiga joogiga ha idin macnaado wayahay dagaalkii maanta ka dhacay duleedka ceel hareeri iyo garas magan oo runtii qawaarijta عشر لوجو دقي يدور لقى صاري سد حاج أو أي جوز كقطين دجال كاس إلا يحضر الصعداء ساكي أيوب بلا ودجال كاسي وهو قاضي عندما الدجال مع وسليدة رنتي والدجال وقرار ورنتي صعنا يو وكوحدة قوارجته يعني تبحوا جن لوجو جستي إن على جيت عسبان أبيه هرجن كان حد الصعداء سد حسنا كهر باللعبي أيام مانتا wuxuu weerar afka ku qaaday dawladda federaalka Soomaaliya cali jeyte oo aad u careysan ayaa wareysi bixiyay ayadoo waayahan wareysi uu sabixin codkiisana aan la arag haddaba cali jeyte wuxuu dawladda dusha ka saaray eed weyn oo uu ku tilmaamay in la xaqirayo wiilasha macwisleyda deegaanka yani oo dagaalada kula jiro kooxda argagixisada أنا نصيب دراء إن التلمامي وهي الدورك إليه مع وزليد أما دك ديغان كاكا دقالمية ديك بحا يروه كسرو تعاكو حبونا عن دك الصوماليين كيلين دولة الصوماليين عن كيلين إن الدراء دورك أيقو إيقاتين إن عدك وشيقتو نصيب دراوي وهي ugu bishaaraynaynaa macaamiisheena in qiimo dhimis ballaaran aan ku sameynay xirmooyinka maalinlaha iyo midka billaha xirmada maalinlaha ee casri ku shuba $1 oo hel data internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo 36 saacadood halka markii hore lagu heli jiray 24 saac oo kaliya xirmada billaha ee casri ku shuba $13 oo hel data internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo bil halka markii hore qiimaheedu ahaa $15 uga shuba dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 afar gees ama dahab reseller xidig 300 afar gees fiiro gaar qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban wayahay asxaabta soo dhawaada marka idin ahaantii meel kasta joogtaan muuqaalka hala riixo muuqaalka iga riixa ilma real muuqaalka fogeeya shartiya like-ta adinku hawshiina shaqadiina waa taa wayahay soo dhawaada marka maanta waxa dhacay ama socday ilaa hadda dagaal aad u qaraar oo u dhaxeeyo ciidanka deegaanka macwisleyda gobolka Hiiraan iyo kooxaha argagixisada runtii dagaalka saakay weerarkaasi waxa qaaday ciidanka deegaanka ayaa qaaday waxayna ku qaadeen duleedka ceel hareeri kooxaha argagixisada oo ku dhuumaaleysanaya shantii bariyo ugu dambeysay oo halkaasi godad ka qotay runtii dagaalka waxa laga soo warinayaa hadda in godad badan laga saaray ilaa 3 aag kooxda laga saaray dagaalkan oo wali socdo oo sii socdo xabadana ay sii faninayso ilaa iyo ceel hareeri hadda waxa la iskala baxay 10 kilomitir ilaa iyo 8 kilomitir ayaa la iskala baxay oo banaanka kale oo banaanka kore runtii marka kooxda argagixisada oo halka ku dhuumaaleysanayay dhul hawd ayay godad ka qoteen dagaaladana bariyahan way socdeen oo meelo badan iyo aag badan ayay ka socdeen oo aaggaas oo waxna siinaa iyo bajiinaa midna ma jirin oo macwisley xabad ayayba ku ciidayeenba 3 maalmood ciidaha oo yani maanta ugu dambeysay ciida kooxda marka waxaa loo diiday chance inay ka baxaan aaggaas oo meel kasta waa laga hareereeyay oo aag kasta ayaa laga fadhiyay saaka marka waxay go'aamiyeen ciidanka deegaanka in ay weerar ku qaadaan weerarkaasoo 3 jiha ahay weerar wuxuu ahay ku talagal oo xoogan oo lagu talagalay in looga saaro godadkan ay ku dhuumaaleysanayaan kooxda argagixisada runtii marka hadda wararka hadda ugu dambeeyay waxay sheegayaan in godadkii laga saaray inta badan laga saaray ilaa 3 aag horta godadkoodii laga saaray kooxda xabadana lagu sii wado oo ay sii dhacayso runtii marka qasaaraha meeshaasi ka dhacay qasaariga ma aha
labada dhinacba waxaa soo kala gaaray khasaare ayaa soo kala gaaray laakiin dhankeenna anaga uma aragna khasaaro oo annaga faa'iido ayaanu aragnaa oo dad waxaan nahay deegaankoodii ku dirirayo oo gurigoodii ku dirirayo oo sharafkoodii iyo cirdigoodii iyo karaamadoodii dad ilaashanaya ayaan nahay annaga waxaa taa ayaan dhimanaynaa laakiin waxa khasaaray waa eeyaha naarta weeye waxa khasaaray oo haddii ay dhintaan horay cadaab ka aadaya laakiin annaga mujaahidiin ayaan nahay dhulkeenna nafteenna iyo maalkeenna ayaan ku diriraynaa inagu haystaan diintana waynoo ogashahay marka khasaaraha koleetaba khasaaro way jiraan kooxda argixisada ha u badnaato oo ayada had iyo jeer waa uun iska uun badyaal wey ayaga waxooda marka dagaaladaas ayaa maanta dhacay runtii markaa waxaa rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo in horta yacni gudaha hiiraan laiskala baxo oo laisla aado dhanka iyo shabeellaha hadda waxaa lagu dirirayaa waa xuduuddii hadda inta u dhexaysay shabeellaha dhexe iyo hiiraan ee aggas ah weeyaan waxaa lagu dirirayo weli xataa khaasatan gudaha hiiraan ayay ku jiraan laakiin waxaa rajaynayaa saacadaha soo socdo in hiiraan horta laiskala tallaabo oo dhankaa iyo shabeellaha dhexe gudaha laiskula galo haddaba shabeellaha dhexe meel ma jiraan waa xabadda wayba gaartaaba aadan yabaal meel dheer uma jirto waa afaafka hore aadan yabaal meesha laisku haysto lagu dagaalamaya waa yahay haddii aan markaa intaas aan yacni kaga soo gudbo dagaaladii maanta dhacay oo guulo waaweyn laga gaaray haddii aan u soo jeesto dhanka waraysigii cali jeyte uu bixiyey maanta waraysigaasi wuxuu ahay waraysi horta aad u kulul cali jeyte waxaa ka muuqatay caro weyn ayaa ka muuqatay cali wuxuu sheegay in dad 3 sano dhiigbaxayay dhiiggoodu daadanayay taakulana aan helin hadday dhanka Soomaali tahay iyo hadday dhanka dawladda ay tahayba waxaa markan si darro aad u weyn ah ayuu yiri howlihii iyo howlgalladii ayaga ay fuliyeen iyo guurihii ay gaareen in la sheegto oo ay dawladdu ay sheegato baryahan hadda waxaa socday oo meediyaha dhan la dhex marayay wararkaas dawladdii waxay keentay filin waxay keentay muuqaallo la soo diyaariyay dawladdu soo diyaarsatay oo duqeyn ah oo meesha duqeyntaas ay ka dhacaysay iyo dhulkan isku dhulmaba ahaanba iskumaba ekaba meesha duqeynta hadda ka dhacayso dawladda ee tiriwaatana meeshii lagu dilay nuunuule ninkii lahay iyo raggii la socday waa dhul bannaan oo geed gaab ah meeshaanna waa aaggaan waa la yaqaanaa aad hawd geedihiisa aad u badan yihiinoo hawd ah weeye marka dawladdu waa fashilantaa laftigeeda ayadaa fashilan runtii marka cali jeyte wuxuu sheegay inay tahay nasiib darro aad u weyn in dawladda ay sheegato ama ay u quuri weyso war waad mahadsan tihiin ciidanka deegaankow howshaad aad qabateen runtii markaa nimankan la dilay maxuusiyeed ay dishay malaayiin dollar ayaa madaxdooda saarneed oo dawladda maraykanka ay dul saartay dawladda marka waxaa hunguri ka galay oo ay raadinaysaa oo daba taagan tahay malaayiinka dollar in ay qaadato laakiin waxaan u sheegaynaa oo amerikaanow maraykanow dhagaha ma lihid indhahana ma lihid wax walbana u jeedaan waxa meeshaa ka dhacay waxa geystay waa wiilasha maxuusliyada deegaanka ee gobolkaasi ka diriraya dawlad ma geysan adinkana waad ka warqabtaan oo duqayn aydan adinka la socon oo aydan amarkeeda bixin in aysan Soomaaliya gudaheeda aysan ka dhicin taa horta Soomaali ma ogtiin maraykanka duqayn uusan ogeyn walaa Turkiya fuli karin walaa Soomaali kala fuli karin walaa ajaanib kala fuli karin ma fuli karaan asaga wuxuusan ogeyn oo uusan la socon ama uusan amrinba marka waxaan leenahay Maraykan waa la socotaa adiga laftigaada duqayntaas in aydan adinka geysan ama saaxiibada kale aysan geysan oo wiilashan lagu dilay markaan lagu dilay qawaarista ama mujrimiinta ah yaani jidgooyo loo dhigtay dhaxda in lagu dilay adinkaba waa la socotaa Maraykan waa ogaa taas marka waxaan leenahay Maraykan oo lacag bixinaysidna kooleytaba dawladda siisan dhib ma lahan laakiin guushaas iyo hawshaas waxa iska leh wiilasha maxuusliyada ah cali jeyte marka taa ayuu ka gurgishay aad yani uga xanaaqay in ay dawladdii dhammeed oo runtii kooleytaba aan u jeedin dhigbaxa iyo dagaalkan iyo hawshaan aan u jeedin ee beesa keliya u muuqato raadinayso malaayiinka dollar ee nimankaa dul saarnaayeen hadday tiraada annagaa ka mas-uul ah wiilasha maxuusliyada annagaa dawlad ah annagaa ka mas-uul ah dalka annagaa ka mas-uul ah Maraykan lacagtan si nimankii waa dilna haddii xataa la yidhaahdo wax weyn ma aha laakiin annagaa dilnay oo duqayn ku dilnay wiilashaasna waa la dafiray waxaas wax suurtagal ma cali jeyte waa ka dhiidhiyey waa u diiday wax aqliga gal karna ma aha ayuu yiri
runtii marka cali jayte maanta aad ayuu u xanaaqsanaay oo runtii waraysigan waraysi kulul ayuu ahay in muddaaba waraysi nuucan ah laga mehelin mana bixin cali jayte marka waxaan leenahay aan kusoo gabagabeynayaa dowladdu waxaan leenahay war haddaad lacagtaan qaadanaysaan qaata annaga lacag ma rabno annaga kooxdaan argagixisa oo dalka laga sifeeyaa dan noogu jirtaa sababtoo annaga taarget ayaan u nahay meel kaloo xabad uga dhacaysa ma jirto culayska annagana soo wada saareen maanta shabaab oo dhan wuxuu la dirirayaa xawaadle cid kale la diriri maayo meel kaloo xabad ka dhacaysa ma leh marka annaga lacagtaa iyo waxaa idinka qaata daarabtaanoo sheegta xataa mas-uuliyadda annagaa ka mas-uula dheh dadkaa ka dowlad ahaan annagaa ka mas-uul ah dalka wiilasha macsuuliyadda annagaa ka mas-uul ah dhaha lacagta qaata lacagta daarabtaan laakiin dafiraadda hala joojiyo dafiraadda warhooy waxbay idin dhibaysaa wallaahi wax weyn bay idin dhibaysaa iyo bilaahi iyo tallaahi joojiya dafiraadda aa wadaan maantana lama inkiri karo doorka wiilasha macawslida xawaadle wax la inkiri kara ma aha wax qarsoomi karana ma aha wax yacni mara hoosteed la gelin karna wallahi nasa inay bilaahi tallaahi adinka waa ogtiin marka waxaa leenaha dowladda tartiibsada lacagtaa qaata idkuma haysan qaata waxba ha naga soo gaarsiinin iska qaata jawaab ku shubta akoonnada ku shubta daartaan laakiin danta muhiimadda aan leenahay waxay tahay argagixis inaan la dirirna annaga haddaa marka idinka aad yani ujeeddo kale aad leedihiin xawaadda waa xanaaqaya dagaalkuu joojinaya saan waaye haddaad is leedihiinna annaga dagaalkaan joojin mayno haddaan joojinno annagaa baaba'eenna annaga difaac nafsigaana nafteenaan difaaceenna argagicisaan ka difaacanaynaa somaydaan garan marka haddaad is leedihiin xawaadla intay xanaaqaan dagaalka joojinayaan taas waa waxaad iska dhaadhicisan ama riyo weeye dagaalkaan joogsan maayo argagicis waa la dagaalamaynaa inta gabar ay naga dambayso gabar ee naga nooshahay taa ayaan dowladda leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu